السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaa casharkii 22 ee maadada xisaabta fasalka fanfoorka. waxaynu weli ku jirnaa chapter 1 ama chapterka koowaad aan la trigonometric. waxaynu ku jirnaa ciwaanka u dambeeya trigonometric equation. waxaynu ka qaadanaa example 5 ama tusaalaha shanaad. tusaalaha shanaad wuxuu ku saabsan yahay baa lahay solve tan x plus radical 3 is equal sec x of the internal 0 until 2 by. waxaa la xalli tan x plus radical 3 ma la mid tahay sec x adoona ka dhex bixinin intervalka 0 ilaa 2 by. macnaha 0 ilaa 360 degree intaas adoo ka dhex bixinin intaas degreegaas adoo ka bixinin ama radiankaas adoo ka dhex bixinin waxaad soo xalisaa equation-kan intaan x plus radical 3 la mid tahay sec x. ayaynu ka shaqeyno. marka hore waxaan soo qaadaynaa su'aasha noo direeyayd tan x plus radical 3 is equal sec x. halkaas marka marayno waxaan sameynaynaa qaybtan dhankan iyo qaybtan laba qayba waxaynu galeynaa ama square sareyna waxaan dhahaynaa tan x plus radical 3 waxaan galeynaa qaybtaas dhan radical square. sidoo kale qaybta kale oo sec x na sidoo kale waxaan galeynaa square. qaabkaas ayaan qoraynaa. waxaan sameynaa tan x plus radical 3 ayaan waxaan u sameynay square. qaybta kale sec x na waxaan siinay square oo laba dhinacba square ayaan gelinay. kadib qaybtan tan x plus radical 3 da x square-ka qaybtan way leedahay qaybtan way leedahay. marka waxay noqonay tan square x plus 2 radical 3 tan x plus radical 3 markaan laba mar isku dhufto waxay noqon radical 9. radical 9 markaan xidka la saarno waxaa noo soo bixi 3. qaabkaas ayaan qoraynaa oo waxaan u furfurnay qaybtan qaybka loo furi jiray a plus b qaacidadii caanka ahayd ee a plus b square. qaabkaas loo furi jiray waxaa loo furi jiray a square plus 2ab plus b square. qaabkaas ayaan u furfurnay tan square x plus 2 radical x plus 2 radical 3x plus 3 waxay ka timaaday radical 3 markaa laba mar isku dhufto waa radical 9. radical 9 markaa xidka la baxayo waxaa soo bixi 3. qaabkaas ayaan u qoraynaa. waxaan sameynay square-ka ayaan gooni u siinay oo waxay noqotay tan square x plus 2 radical 3x plus 3 no waxay ka timaaday radical 3 markaa laba mar isku dhufto waa radical 9. xidka markaa la saaran 3 soo baxaysa. qaybtan sida soo qaado oo sec square x ayay noqonay. kadib markaan halkaas marayno waxaan sameynaa qaybtan oo sec square x ayaan bedelaynaa. waxaan bedelaynaa qaacida ka mid ah Pythagorean rule-ka oo lagu qaato form 3-ga oo ah sec square x waxay la mid ahaan jirtay 1 plus tan square x. sec square x iyo 1 plus tan square x waa isku mid. haddii 1 plus tan square x lagu siiyo waxaa u bedelan kartaa sec square x. sidoo kale haddaan sec square x na siiyo waxaan u bedelan karnaa 1 plus tan square x waa isku mid. waa qaacida loo yaqaano Pythagorean rule oo dhowr qaacidooyin ah. marka sec square x ayaan bedelaynaa waxaan u bedelnaa 1 plus tan square x ayaan bedelaynaa. qaybtan oo soo qaadanay kadib sec square x waxaan u bedelnaa 1 plus tan square x. kadib waxaa isla baxaya tan square x iyo tan square x labadaas way isla baxeen maadaama ay isku mid yihiin. kadib waxaa noo soo haray qaybtan 2 radical 3 tan x plus 3 is equal 1. intaas ayaan soo qaadanaynaa gudaha ku jirto. waxaan soo qaadanay 2 radical 3 tan x plus 1 is equal 1. intaas oo sababta tan square x iyo tan square x way isla baxeen. kadib markaan halkaas marayno waxaan sameynaa plus 3 iyo 1 kan aan wareejinaa plus 3 aan wareejinaa waxay noqonay 2 radical 3 tan x is equal 1. 3 wareeji plus wata minus noqon marka minus 3. qaabkaas ayaan u qoraynaa. waxay noqotay marka 2 radical 3 tan x is equal 1 minus 3. kadib markaan waxaan sameynaa marka waan kala jaraynaa 1 baan wax ka jarnaa minus 3
minus 2 noqon marka waxaan noqonaynaa 2 radical 3 tan x is equal minus 2 qaabkaas ayaynu noqonay kadib waxay noqotay 2 radical 3 tan x is equal minus 2 kadib inta marka marayno waxaan sameeynaa waxa raadinaa tan x ayaan rabnaa inaan soo helno qiimadeeda marka tan x waxa ka horeeya 2 radical 3 marka 2 radical 3 tan x waxa la mid tahay minus 2 ayaan qoran waxaan rabnaa inaan soo helno tan x qiimadeeda marka 2 radical 3 ayaa meel kasta u qabeynaa qaybtan 2 radical 3 u qabeynaa qaybtana 2 radical 3 aan qabeynaa marka 2 radical 3 waa isla baxayaan waxaan soo haray tan x in la mid tahay qaybtan waxay noqotay marka saan oo la qiimaha tan x waxaan sameynay tan x waxa ka horeeya 2 radical 3 marka qaybtan 2 radical 3 u qaybi qaybtana minus 2 na 2 radical 3 u qaybi waxa soo baxay 2 radical 3 iyo 2 radical 3 waxaan soo bixi tan x oo kaliya kadib tan x marka soo baxdo tan x waxa ay noo soo baxday tan x marka waxa la mid tahay minus 2 loo qayb 2 radical 3 minus 2 loo qayb 2 radical 3 ay la mid tahay marka minus 2 iyo 2 ma isla bixi waa isku qabeynaa 2 marka 2 aan qabeynaa marka 2 marka isla qaybiyo waxa soo bixi minus 1 oo koreeya loo qayb radical 3 2 marka 2 loo qayb waa 1 oo minus marka kor buu ku haray minus 1 loo qayb radical 3 ay noo soo baxay tan x maxay la mid tahay minus 1 loo qayb radical 3 intaas kadib waxaan sameeynaa waxaan raadinaynaa hadda tan x qiimaha soo helay laakiin waxaan rabnaa soo helno qiimaha x ta qiimaha kaliya x ta marka x waxaan leeyahay x waxay la mid tahay tan inverse gareena marka tan inverse 1 loo qayb radical 3 1 loo qayb radical 3 intaas ayaan saas qaabkaas ayaan qoraynaa x aan qiimaha waxaan sameeynaa tan inverse 1 loo qayb radical 3 minus maxay cadaynaysaa minus waxay cadaynaysaa tan inta waaxood ay minus tahay afarta waaxood inta minus ay waaxd ay minus tahay marka tan waxay minus tahay waaxda labaad iyo waaxda afraad marka minus taas waxay cadaynaysaa in tan ay laba waaxood minus tahay waa waaxda labaad iyo waaxda afraad kadib tan inverse 1 of radical 3 intaas marka ku qatar galino waxaan noo soo bixi x in la mid tahay bay loo qayb 6 bay loo qayb 6 sababta su'aashan waxaan u shaqeynaynaa example waxaan u shaqeynaynaa raadi ahaan marka bay loo qayb 6 ayaa noo soo baxay x marka waxaan noo soo baxay bay loo qayb 6 bay loo qayb 6 marka maxay tahay waa answerkeena koowaad ama reference angle-keena marka waxaan raadinaynaa minus tan meeqa minus tahay meeqa waaxood ay minus tahay tan waxay tahay laba waaxood ay minus tahay oo waaxda labaad ah waaxda labaad iyo waaxda afraad solution noo soo baxay answerka noo soo baxayna waxay noo tahay reference angle-ka oo aan ku raadin lahayn laba waaxood ee noo dhiman marka waxaan sameeynaa x ayaan dhahaynaa x waxay la mid tahay dhahaynaa waaxda koowaad waaxda labaad waxaa lagu jiray by oo 9 u dhiganta oo laga jaray theta soo heshay theta waxaa soo helnay by oo loo qaybiyay 6 marka by oo loo qaybiyay waxaan ka jaraynaa by waaxda labaadna waaxda afraadna waxaan ku heli karnaa x ay wax la mid tahay 2 by oo ah 360 laga jaray theta soo helnay oo ah 6 loo qaybiyay 6 qaabkaas ayaan laba waaxood ayaan u raadinaynaa mid hore waxay waaxda labaad oo minus tan tahay x waxay la mid tahay by oo natural theta soo helnay marka by noo soo qaad theta waxaan soo helnay 6 by loo qaybiyay 6 kadib by oo laga jaray by oo loo qaybiyay 6 waan ka shaqeynaa marka hooseeyaha LCM-ku waa 6 marka 6 waxaan u qabeynaa hooseeyaha hal ah marka 6 loo qaybiyo 6 marka waxaan ku faynaa by waxay noqoni 6 by noqoni laga jaray marka 6 loo qaybiyo hal markaan by ku fana waa by marka waxaan soo bixi 6 by oo loo qaybiyo 6 by laga jaray by oo loo qaybiyo 6 qaabkaas ayaan u qoraynaa waxay noqotay sig meeshan oo C1 ah marka 6 loo qaybiyo waa LCM ko 6 waay 6 marka 6 hal loo qaybiyo 6 waay 6 marka by ku furto wax noqoni 6 by ama 6 by hay laga jaray 6 marka 6 loo qaybiyo hal marka by ku furtana waa by marka 6 by loo qaybiyo by noqoni
markii 6 bay markii loo qabiyo bay markii 6 bay marka laga jaray bay waxay noqoni 5 bay oo 5 6 bay waxay wataa hal horgala 5 marka 6 marka ka jarno 5 ana soo harsa bayna soo qaadana marka wax noqoni 5 bay oo loo qabiyo hooseeyo 6 ah jawaabta saas ana soo baxayso ana soo baxay 5 bay oo loo qabiyo 6 taas waa waaxda labaad oo tan ay maanistay waaxda afraad ayaa noo dhiman oo ah tan ay maanistay waaxda afraad waxa lagu jiray 2 bay oo laga jaray theta soo helnay bal aan saas u qorno waxay noqon marka 2 bay oo laga jaray theta 2 bay soo qaado bay 2 bay theta soo helnay waa reference angle ah bay oo loo qabiyo 6 haya bay oo loo qabiyo 6 marka waxaan noo taala 2 bay oo laga jaray bay oo loo qabiyo 6 LCM kooda waxa waaye LCM kan waa 6 oo si hal marka 6 hal loo qabiyo 6 marka 2 bay u dhuftan marka 6 lagu dhufto waa 12 ay noqonay 12 bay ay laga jaray ayana 6 u qayb waa hal bay ku dhufo waa bay ay 12 bay marka bay ka jarno waxaan soo bixi 12 bay oo loo qabiyo 6 ay noqoto marka LCM ku 6 ay noqotay kadib 6dan waxaan u qaybin hal hoose ah 6 marka 6 marka hal u qaybin waa 6 6 lagu ku dhufo waa 12 bay oo ka soo qornay hay main soo qaado 6 u qayb waa hal bay ku dhufo waa minus bay hay 12 bay ka jar bay waa 12 bay oo loo qaybiyo 6 jawaabna soo baxay marka waxa waaye jawaabta oras oo reference angle ka nooheed waxa waaye waa 6 loo qaybiyo bay waxa bay loo qaybiyo 6 waa bay loo qaybiyo 6 ayaa jawaabta oras waxa waaye bay loo qaybiyo 6 jawaabta labaadna waxa waaye 5 bay loo qaybiyo 6 jawaabta saddexaadna waxa 12 bay loo qaybiyo 6 saddex su'aal ayaan saddex jawaabood ayaan noo diray waan ka shaqeynay